الحمد لله والثناء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. waxaan caawa barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa ama aan ku faaqidi doonaa maalmo baraha bulshada arrimo isdhex maray oo ah muxaadaro ama sheekh uu jeediyay culimada kamid ah. marka muxaadaradu sheekhiisa qayb kamid ayaa dadku aad u soo falanqeeyeen oo ay soo qaateen iyadoo dadku aad uga falceliyeen oo qofba si ula aaday. marka bal caawa barnaamijkaas waxaa aniga iyo waxaan ku nahay walaalkay maxamed saciid oo marti inuu ku nahay. marka bal waa kusoo dhaweynaa insha Allah tacaala. masha Allah. horta barnaamijka haddaan sheekha aan ka hadlo uga horeysiiyo, sheekh waxaa la yidhaha sheekh cabdiraxmaan axmed rooble. dabcan saan maqlay waa sheekh boqolsoon, allah u naxariiste walaalkiis. sheekha in badan waa nin macnaha lagu yaqaano geesinimo, oo nin aada culimada u wacdiyo, oo ducaadda soomaaliyeed kuwooda ugu wanaagsan ee weliba madax banaan oo ururdaymeedi midna aan inta badan lagu tirin oo kamid yahay. haddaan inta uga soo haro qayb kamid a muxaadaradiisa ayaa weliba waxaan maqlay barnaamijka sida inta badan baraha bulshada la wareejinayo ay gabdhuhu ka caroodeen hadalka oo u dhigan yahay. yani marka gabdhaha markii aan dhahayno waxaa waaye sida baraha bulshada ay dadku u qaateen. marka waxaan rabnaa ina barnaamijkaas iyo su-aalihii anaga nagala aadan iyo wixii aan kaga jawaabi karno, inkastoo muuqaalka dadku ay sabab ay sheekha khudbadiisa dhan wada daawaninba, haddana wixii macnaha ka dhashay falcelin ahaa dadkii iyo cawaaqib xumada ka imaan karto. horta su-aasha koowaad ee ustaadii aan weydiina waxay tahay arna inaad noo faaqidid, ma banaanta in qof muslima la caayo, weliba xaq daro lagu caayo qof muslima in la caayo? sidoo kale ma banaan tahay in culimada lagu jees-jeeso oo wixii lagu sheego? cawaaqib ka dhalan karase muxuu yahay? su-aalahaas waxaan caawa inaad si fasiix ah aad uga jawaabtid. Masha Allah. inti kaaga aadan insha Allah. waa mahadsantahay sheekh. waxaan ka dhahaa bal intii kelimad iga aadan. su-aasha koobaad haddaan galo, oo ma banaanta qof muslima in xaq daro lagu caayo, sabr muslim bigayri muslim bigayri xaqin, cafwan, in macnaha qof muslima la caayo xaq daro. xadiidka ayaan kusoo qaadan karnaa nabigeena ibn mascuud uu warinaya radiyallahu canhu alla kala noqde, qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasalam sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufrun, muttafaqun caleyh. waana xadiidku waa muttafaq. sibaabu muslim, marka muslim in la caayo qof muslima aada caayid waa faasiqnimo horta horeyn. in aad marka dishan waaba gaalnimo, macnaha waa qitaalu kufrun. marka taas waxaan ka baran karnaa marka inay sababtaatanba qof muslim in aada caayid oo muslim haddana kula ah inay macnaha aysan banaanayn oo faasiqnimo tahay, haddana ay kasii daranta inaad haddana dishina ay tahay macnaha gaalnimo. marka xadiidkaas ayaa dabcan horta aan kusoo qaadan lahaa, kusoo koobi lahaa. su-aasha labaad ee ah ma banaanta in la caayo culimada ama lagu jees-jeeso ama la durana, iyadana waxaan ka dhihi lahaa sabqu lculamaa wadacni fiihim walistaa bihim. in la caayo culimada la duro oo lagu jees-jeeso, saan ognaha macnaha culimadu waa dadkii ambiyada dhexlay, warasul ambiya, waana dabcan khalqiga kuwa ugu fadliga badan rususha ka gadaan. waxay intaas ku noqdeen waxay yihiin ayagu dadkii macnaha iftiinka dadka u ahaa oo ka bixinayay mugdiga, haddana dadka u hagayay gacmaha inta qabtaan wadada guusha macnaha ama hanuunka. inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa, wax alla ka baqa oo adoomadiisa kamid oo sidaba ah culimada. marka aayado badan way jiraan, yarfacu allahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu cilma darajaat wamaa yacqiluha ila alcaalimuun. marka aayaduhu macnaha markii la fiiriyo waa ay aada u fara badan yihiin. marka maadaama yihiin culamada marka dadka dhexlay ambiyada dabcan mugdigana ka saaraya iftiinkana u ahaa, meel ay macnaha ku banaanta ama in la caayo ama la duro ama lagu jeejeeso kollay diinteena ma qabto. ilahay marka mar kale aayadaha macnaha yarfacu allahu alculamaa min shanihim, arrimahooda marka ilahay u sare marinayay. aayad kale wuxuu kuleeyahay suuratu ali cimraan, shahid allahu anahu laa ilaha ila huwa almalaaikatu ululcilmi qaa'iman bilqisti. marka ilahay wuxuu qirayaa inuus alla maahan asaga maahan inuus alla kala jirin, malaaigta iyo dadka cilmiga u saaxiibka. marka qof ilaahay macnaha xiriiriyey naftiisi oo kula xiriiriyey iyo malaaigtiisi, in macnaha waajib waxaa ku ah inaad karaameedo haddana ixtiraamtid. marka imaam axmed waxaa laga wariyey raximahullah allah u naxariistay inuu yiri luxuum lculamaa masmuuma, man shamaha marida waman akalaha maata. macnaha hilibka culimadu waa sun, macnaha qofki uriya uu dhintaa ama macnaha cafan wuu xanuunsadaa ama uu ku jiradaa, qofka cunana wuu u dhintaaba. marka wasadaqa alqaa'il haddaan soo qadno shaacirka ama qowlka hadalkiisa, luxuumu ahli lculamaai masmuuma waman yucaadii bihim sariicu lhalaaki fakun liahli lcilmi cawnan wain caadaytahum yowman faqud ma ataaka. wuxuu leeyahay
hilibka culamadu waa sun qofkii macnaha la coleentamo waxaa u dhow halaag macnaha uu usoo degdega waliba siricul halaag marka waxaa ahaataa uu kuleeyahay fa kulli ahli cilmi cawnan dadka ahlulcilmiga u saaxiibka oo ilaahay diinta oo raasiqiin cilmi ah kaalmo ka dhigo iyo mid macnaha caawiya mar walba oo caawiysta macnaha oo mar walba arrimihiisa u sheegta wain caadaytahum yawman fakhud ma ataaka macnaha haddaad marka la coleentid oo aad macnaha qofkii culimadii aad macnaha coleyn ama dagaal ku keentid maalin fakhud ma ataaka wuxuu leeyahy marka wixii kaaga yimaada oo ah cawaaqib iyo sariicul halaag qaado marka su-aashii dambeedo ah waxaan rabaa inaad dul istaagtid maxaa ka dhalan kara cawaaqib ka dhalan kara muxuu yahay in culimadii lagu xadgudbo maasha allah ayadana cawaaqib ayaa ka dhalan karta dhowr ayaan kusoo koobnay ilaa maa 6 arrimood waa ay badan yihiin cuqubado laakiin ugu horreyn horta macnaha sunnata sayi-a calayhi wasalam macnaha qofkaas ku dhiiraday inuu culimadii caayo wuxuu jideeyey horta sunno macnaha xun oo aan fiicnayn dembigii macnaha soo gaara ama dadkas kasoo gaara nabiga calayhi wasalam macnaha asagaa xambaaranaya addaalu cala alkhayri ka faacili qofka macnaha qaar ku tusiye waa asoo sameeyey kadalika qofkan hadduuba sharti dadkii tusiyey waa sida asoo sameeyey tan labaad ee cuqubada aan ku tilmaam karna waxa waaye min shiraari lkhalqi alyidi wuxuu kamid yahay dadka kuwa uu sharta macnaha khalqiga ugu sharta badan tan saddexaad annahu qad carada lixisbi illahi caleyh macnaha wuxuu usoo banbaxay lixarbi illahi cafan inuu la dagaalamo macnaha ilaahay maadaama culimadu ay ka turjumayaan ay wadaan kalaamka ilaahay tan afraad yubtala bimowti qalbi waxaa lagu imtixaanaa in qalbigu ka dhinto macnaha qofkaas ku dhiirida culimada inuu caayo tan shanaad waxaa waaye waxaa lagu imtixaanaa su-ul khaatimo xumo tan lixaad waxaa lagu ciqaabaa min aljazaa min jinsi alcamal macnaha sida oo markaas isagu sameeyey ficilku ku dhiirada in asna lagu sameeyo marka arrimahaas horta waa arrimo saasa waa dabcan 6daas arrimood waa waxyaabaha ka dhalan kara qofkii ku dhiirada inuu caayo culimada ijtiraas ama ku dhiirada marka su-aashii horta intaas masha allah horta ma soo koobi karo yani cawaaqibta ka dhalan karto dabcan marka waxaan arkaynay oan ku arkaynay baraha bulshada in dhalinyaro qaarkood xataa inay wax barteen oo dad wax bartay haddana ay iskaga soo dhiirinayaan hadallo oo aad moodeysa inay dad weji ka raadinayaan dad xataa youtubera inay youtube insocota reaction ay ku sameynayaan sheeka ay ku xadgudbayaan marka ereyga ah macnaha kelimada markii laga hadlayo xaqa lagama xishoodo dadkana in runta loo sheego wax waajib ah waay oo ina saaran in allaha la yastaxyi min alxaq sidoo kale inta badan waxyaabaha ay dadku hadalka ay ka xanaaqeen yani dadku ama ay dhibaatada u arkeen oo weliba dumarkan dhibaato u arkay oo difaacina camal ay usoo galeen waxaa waaye ereyga macnaha kelimada ah dhilo yani kuwa saas ah waa dhilooyin inkastoo khudbadii ay ahayd inay soo dhageystaan oo bilow ilaa dhamaad ay soo dhageystaan sababta sheekhu oo ku dhaha hadalkaas haddana waxa ka socda yani magaalada iyo xeebaha iyo wadanka waxa ka socdo ayuu sheekhu aada uga hadlayo ku dheerdheeraaday oo dhalinyadan ka waaninayay sidoo kale markii aan eegno dadka kasoo falceliyey iyo falcelintooda in ay culimada ku jeesjeesaan waa wax macnaha aada u weyn iyo aan kasoo hadalnay mathalan markii la dhaho ereyga ah kelimada aan dib ugu laaban ah zino dhilo yani haddii af soomaali lagu dhaho zino macnaheedu waa dhilo azaniyatu wazani alla subxana wataala qur-aanka ku leeyahay yani azaniyatu dhilo waay iyo wazani dhilo macnaka adi dhilo laguma dhihine haddii aad tahay qof walba wixii uu yahay unbuu dhibsadaay haddii adiga aad macnaha xumaato u aragtay qur-aankay ku taallaa oo hadal ilaahay waaye sheikhu asagu meel kama usa soo qaadanin marka ikhwaani waxaa loo baahan yahay in haddii xaq oo qof ka hadlo in aad sidii aad ugu dhaqmi lahayd aad falkeeda gasho bedelkii aad ku mashquulin lahayd dhalinyaradana waxaan kula talin lahaa inay bartaan cilmiga oo ay diinta bartaan si aysan mar walba u ahaanin dad macnaha badow ah oo jaahil ka ah diintoodii oo diintii ilaahay usoo dejiyay jahli ka ah ustaad saciid haddaan kaa dhex galo macnaha macquul soo ma ahan in qofku intuusan ficil ka sameynin oo waxa inta dhegaysti oo dad weydiiyo xitaa hadduu asan jaahil ka yahay markaas kadib oo wax kaga aadan ka bixiyo aad barnaamij macnaha wixii haddaad jaahil ka tahay adigii oo ereygan yani aad jaahil ka tahay oodan macnihiis fahmi karin waxaad xaq u leedahay inaad culimada weydiisid aad weydiisid qof ku cilmi leh markaas jawaabtii ay wixii ay noqdaan sida saxda ahayd
waaba xaqi waad haleeshayba. laakiin haddii aad adoo jaahil ka ah weli aad la dhacday, jaahilka waxaa loo qaybiyaa labo, jaahil murakab iyo jaahil. qofka macnaha jaahilka ah waxaa la yidhahdaa qofka macnaha jaahilka ah intaba waxaad u sheegtay wuu fahmaa, wuu qaataa. laakiin qofka jaahil murakabka ah waxaa waaye qofka shay waxna uma sheegi kartid oo haddaad u sheegtidna kaa qaadan maayo. waa macnaha doodana waxaa waaye qalbigay qalajidaa, oo bini-aadanka qalbigooda ayay ka suulidaa damaca wanaagsan iyo khayrka iyo wax dhanay ka suulisaa, way oo mari kartaa qofka. tan kale waxaa jira dad oo magacii ama lafdigii weliba magacii macshiiq inta bedelay magacii lafdigii u adeegsana sida ayagana maxaa ku aragtaa? horta nabiga sal ly slam wuxuu leeyahay dikr akhaaka bimaa yakra, dadka in macnaha la xanto ama ayadooba ay sabab banaaneenba haddana walaalkaa inaad ku sheegtid wax isaga uusan oo dhibsanayo oo shiikhi maanta uusan yeelaynin inaad ugu wacayd. waa baraha bulshada waxaa ku yeelayso sheikh iloodhin dad dhahayo. marka waxaas adiga cawaaqibka ka dhalan karo ma ogid, laakiin waxaa waaye wax yani aan sinaba u banaaneyn culimada in lagu xadgudbo qof muslima xataa magac uusan raali keena ugu wacday. marka dadka waxaan u dardaarmaya inay ka digtoonaan yani waxyaabaha xadgudub ku ah qofka muslimka ah. in badan soomaalida waxay adeegsadaan qofka waxyaabaha uusan raaliga ka ahayn intaba aad u adeegsadaan, mana wanaagsano diiniyan wax wanaagsan ma aha. maasha allah, waa kelimadii horta aniga horan waa usoo hadalna waxaan arnay qofki ilahay macnaha anzilu naas manazilo, qofku waxaa haboon inaad dejido qof makaan walba inaa macnaha yadacu ashyaa fi mawaadica. waa xakiim marka ala leeyahy. marka haddii qofkan culamo yahay oo darajo oo macnaha heer ka gaaray oo uu diinta usoo dhabar adeegay, waxaa haboon inaad ku sharaftid macnaha oo dejidid maadaama ilahay macnaha shahid allah anu ayadda soo qaadanay, waxaana kugu waajiba inaad ixtiraamtid. marka ani ahaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaas waxaa soo sheegay fa kulli ahli cilmi cawana mar kale inay macnaha ay ka dhigtaan. marka ma is leedahay dadkaas maadaama ay la coleyntameen hadalkaas qaa'ilka culamadii inay macnaha fakud maanta wixii uga yimaad inay qaataan marka sida warata ayaga wixii uga yimaad inay qaataan aad sidoo kale waxaa arkaysaa qof waxaa arkaya Facebook qof kusoo qoraayo sawir gabar ma fiirin karaa, sawirkaygiisa gabar ma fiirin kartaa oo kusoo qoraa Facebook. yaa uga jawaabaya yani meesha jeesay karta macnaheedu ma aha su-aasha in sheikh meesha fadhiyo. Facebook sheikh maaha, sheikhna ma fadhiyo, laakiin su-aashaas waxay ahayd in culimada weydiiyo. marka wuxuu la soo istaagayaa sawir gabar ma fiirin karaa, sawirkay gabar ma fiirin kartaa, waana wax jees ah ma banaaneyn. waxaan jeclaysan inaan su-aalka lagu weydiiyo ah macnaha ma la dhihi karaa shiika xumaantada iyo fisqiga guud ahaan adduunka jira gaar ahaan ummadda soomaalida haysta ayuu inta macnaha u adkeysan waayo ay macnaha isxakamey waay macnaha oo marka arrimahaas ay kasoo buuqay macnaha la isdhihi karaa? aad iyo aad waa la isdhihi karaa, sababtoo ah marka hadda la fiiriyo dhalinyaradii iyo waxyaabaha ay ku socdaan. dhalinyarada waxaad u malaynaysaa inay diinteedu jaahil ka yihiin oo ay ku dhaqaaqayaan falal aan wanaagsanayn, in badiyo kale meelaha dalxiiska oo kale in waxyaabo aan indhuhu ay u roonay ay samaynayaan. marka wax wanaagsanna ma aha. shiiku marka waxyaabahaas ka xanaaqay waana waxyaabau ka hadlay shiiku xanaaq iyo care kalema dul dhicina wixii diintu ay ka qabto unbuu sheegay. marka haddaad shiikaan aad isleeda shiikaan caayaysaa, shiik ma caayaysid waxaa caayaysaa aayadaha qur-aanka iyo kitaabka sunada nabiga sal ly slam aad ku xadgudbaysaa ee ma aha inaad ku xadgudbaysa shiika. weliba alculamaa waratul ambiya meesha way taalaa wax kalena kama dhexlin, waa dhaxalka ambiyada cilmiga iska dhexlay culimada. marka waxaa jirta ustaad xadiidka xataa nabiga laa yakhluwana rajulun biimraati illa maca dii maxramin. marka dadku ma laga yaaba inay leeyihiin macnaha wax anaga meesha rabna ku samaysanayna iyagoo axaadiid ay dhegeystaan aada ugu muhiimsanta macnaha shiika hadalkiisii markii la fiiriyo kale wuxuu aada uga gubanayaa badaha kale markuu sheegaayo in macnaha qof dad kale ajnabi oo aan xarig isugu xirnayn inta meel iskula yimaadeen ay haasabo ku qaataan ama iyadoo macnaha meesha shaydaana iska imaan karto. aad taasoo kale hadda shiika uu ka xanaaqay inaad gabar kaa ajnabiya bad kula daatid, adiga laftirkaada ma jeclid walaashaa in badda loo wato oo lagula dabaasho la dabaalsiiyo, ma doonaysid xaaskaada in badda la geeyo, hooyadaa in la geeyo badda ma ogolid. yacni wax gabadha aad ku dheelaysidna ama xumaynaysid waa walaasha. ma ahan in gabdhihii shiika oo xumaynaaye ama oo dhalinyarada xumaynaaye, laakiin wax wuxuu shiiku ilaalinayaa sharafkeeda oo ka hadlaya diintuna ay ilaalinaysaa wanaaga walaasha, walaalka, hooyada,
gabadhaada unbay diintu ilaalinaysaa wanaageeda haddii aad ku xadgudubtid gabar qof muslim aad u dhalatay walaashiis ah haddaad ku xadgudubtid adigana waxaad filataa waa in walaasha lagu xadgudbo taasna yani inaad aljaza min jinsi alcamal marka nabiga sal ly slam wuxuu aayad qur'aan aan dhehe cafwan allah subxana wataala qur'aan ku leeyahay الزانية والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ayadaas sheekhu soo qaatay ma uusan iska soo qaadan yani wax asagu niyadiis oo ka soo qaatay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay az-zaaniyatu waz-zaani laa yankihu illa ma kusad macnaha ragaas waxay macnaha wax aan u qaadinin walaashood iyo macnaha ehelkoodii ay u qaadayaan macnaha dadkii kale oo ehelka kale ah macnaha walaal ah Soomaaliyeed ama gabdhaha kale waxaas u cunamin macnaha aad walaasha waxaan u cuntamaynin inaad u qaado gabar kale waa wax khalad ah oo aad ku hakrabtid waxaad arkaysaa dhalinyarada Soomaalida waxay weli aad ugu soo badatay in gabar marka isku dhacaan wiilka iyo gabar marka isku dhacaan inuu sawiro oo ka qaato marka hore sawiro ay u dirto qaaqaawan yani oo qurxooneen fiicneen hadhowti markay isku dhacaan oo ugu hanjaba mar walba sawirka ayaa soo bandhiga barsha marka gabdhaha waxaan ugu dardaarmaa inay sawiradooda aysan wiilasha u dirin oo ay ka ilaashtaan xataa sawirada u diraysid inti banaan oo yani fiirmada ku banaan diintu calaynayso in cawra ahayn asxan xataa oo sida gacmahaas oo kale iyo wajigaas oo kale oo inay ku kawaraato laakiin wax adiga hadhowti dhib kaaga imaan karo xataa hadduu yahay ninka kugu jecel hala wadaagina kula darbaagina gabdhaha waxaa ugu badan inta badan la dulmiyey xaqoodii la baabi'iyey oo wiilashu ay mar walba ku ciyaaraan oo lagu jeesteesay waa gabdhaha marka gabdhaheena waan jecelnahay gabdhaheena Soomaaliyeed aad aan u jecelnahay waxaan ugu dardaarmayaa inay iska ilaaliyaan inay sawiraantooda ay baraha bulshada ku faafiyaan marka ustaadi masha Allah waa anigu waa soo koob hadalkii ugu dambeeya qof maadaama culimadu ay dadka ambiyada dhaxleen haddana ay dadka iftiinka mugdiga ka saara iftiinka u saarayeen haddana dadka wadada hanuunka lagu jihinay ay yihiin ilaahayna macnaha uu la xiriiriyey oo waajib ka dhiga macnaha waajib ku tahay inaad karaameeyada ixtiraamtid waxaan dhihi lahaa in macnaha qodobadaas dhan la fiiriyo diintana lagu laabto xitaa haddii aysan ku suurtagal inaad wax taqaanid ama baratid maanta waa adduunku horumaray inaad dhegaystid macnaha khudbooyinka iyo muxaadarooyin ku saabsan karaamada iyo sharafta culimada ay leeyihiin in badan in la badiyo oo aan macnaha hadalka aan jaahil camal inta la iska jawaabin macnaha taas qof walba muslima wuxuu leeyahay sharaf iyo karaamo ilaahay u dhaliyay oo ilaahay u dhaliyay karaamo ku dhashay qof walba muslim ah in lagu xadgudbana ma banaanaba si guud haddaan u eegno dadka marka barnaamijkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu